walaalayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii aqoonaysi wadaarsiga ee aan idinla wadaagaya beryaha kan ee aan ugu magac daray fahamka islaamka qaybtii labaad. qaybtii hore waxaanu ku soo qaadanay socdaalkii muhiimka ahaa ee nebi ibraahim uu ku sameeyey meeshii uu ku dhashay ilaa uu ka soo gaarayo ardo falastiin. casharka laga baran karo ee aan sheekadaas soo sheegnay waxaa ku jira nebi ibraahim oo ah aabbihii rususha ama towxiidka iyo dhibka uu kala kulmay markii uu waalidkiisa aabbihii iyo qoyskiisa iyo qoomkii uu ka dhashay ilaa iyo boqorkii magaalada dhibka uu kala kulmay oo dab uu u matay kelmadda towxiidka. cashar weyn baa ku sugan oo ilaa iyo maanta ina haysta ee aanu doonayo sheekadeeda inay ku xiran tahay. waxaa kaloo insha allahu aanu soo qaadanay socdaalka dheer waxyaalaha ka ratibmay oo aan maalinba wax ka taabanayno. socdaalka dheer ee aan ku soo qaadanay qaybtii koowaad waxaa ka ratibmay markay cid kale ay rumeyn weyday oo nebi luud keliya uu aaminay oo uu adeer u yahay. dabadeedna nebi luud baa isa soo raaceen oo la soo haajiray ee dhulkii uu ku dhashay ka soo haajireen. marka magaaladii xaram markay yimaadeen kadibna ardu falastiin dhulkaa markay yimaadeen magaalada ay sheekooyin badan oo qoomo luud iyo qaniisnimo iyo acmaal iyo howlo badan oo runtii bini aadamka ku cusbaa ay ka dhacaysay meeshaasi oo alle subxaana wa tacaala uu go-aansaday in uu luud uu rasuul laga dhigo oo fariin gaarsiiyo. maxaa yeelay markasta waxaynu xoogga saaraynaa owners manual waxa loo yaqaano oo allah subxaana wa tacaala oo abuuray bini aadamka fariinta uu usoo dirayo mar waliba qof asaga uu doortay ee rasuul ah inuu fariinta u dhiibo kadibna qoladaa loogu talagalay uu gaarsiiyo. maxaan ku rahay manualkaasi ama qur-aan ha noqdo ama magac kale ha yeeshee fariintaasi ee la doonayo bulshadaasi marka meeshaa degan in wax looga bedelo dhaqankooda xun wanaagana lagu faro. dabadeedna cashar badan baanu meeshaa ka fahmi doonaa oo ilaa maanta ina haysta ee qoomo luud ay ku kaceen. maxaa loogu diray nebi luud, maxay sameeyeen, maxaase ka ratimay oo ka dhashay. sheeko dheer weeyaan oo keenaysa markaa ilaa iyo maanta aynu nool nahay oo qarniga 21 ina taabanaysa. meel kastoona caalamka kaga nool lahayna haddaynu nahay soomaali kuwa jooga iyo haddii bariga africa jooga iyo meel kastoo caalamka aynu kaga nool nahay yurub iyo maraykanba maantay ay tahay arrin u baahan in aynu maxaa la dhihi jiray casharadii hore wax ka barano. kadibna socdaalka dheer ayaanu weli kusii guda jirnaa oo qaybteena labaad maanta aan kaga hadli doono. qaybta labaad maanta waxay ku saabsan tahay nebi ibraahim imtixaanaadka uu marayo ma yara. maanta wuxuu tegayaa oo socdaalka qaybta labaad aan ku qaadanaynaa markii uu Egypt tegay. Egypt waxaa ka taliya isna maxaan ku rahay boqor kibray fircoon aan niraahno fircoon kama wadno fircoonkii nebi muuse waxaasoo foorah baa la yidhahdaa faraacin weeyaan. markaa fircoonkii daaquudkii markaa talinaya meesha ka talinaya Egypt dhulka la yidhahda masaarida ayuu nebi muuse u tegayaa isagoo xaaskiisa wata. luud wuxuu uga soo tegay falastiin buu maxaan ku rahdaa uu kala kulmay luud hooshii aanu soo sheegnay. rasuul baa la kulmay waxyaalo badan baa cashara ku jira. hadda waxaan usoo gudbaynaa nebi maxaa la dhihi jiray ibraahim oo hore usii socda oo socodkiisii wata. socodka hore markuu usii wato haddee fircoonkan ayaa dhibaato kala kulmaysa. nebi ibraahim markuu dareemay daaqigan weynaaday ee fircoonka ah waxa uu damacsan yahay oo ah xaaskiisa inuu ka xoogo ayuu doonaya sahre inuu ka qaato oo wuxuu doono ku sameeyo. nebi ibraahim wuxuu u imaanaya xaaskiisa sheekada u sheegaya wuxuu leeyahay war nin meeshaan waxaa jooga sidaas ah oo wax wadanka muslima ma jiro annaga aan ka ahayn. walaashay baana u sheegay ee sidaa ogow haddii uu kula hadlo waxaad tidhaahdaa ninkan waxaanu nahay walaalo. oo marka walaaluhu badanaa way ka nabadgalaan laakiin xaasaska ayuu runtii aad maxaan kula u fool xumeeyaa. sidii baa dhacaysa waa la imtixaamayaa sahara maxaan ku allah subxaana wa tacaala bay ku kalsoon tahay markasta oo dayo inuu isku dayo oo wax xumaan ku sameeyaba gacanta iyo waxa qallaya gacmuhu kusoo taagaba. dabadeedna allah iga bari buu dhahayaa sida rasuulka xadiiskiisu inoogu sheegay. kadib markii ay u ladnaato gacmihiisii haddana wuxuu isku dayaa mar labaad inuu ka faa'iidaysto oo uu gabadhii fara xumeeyo. kadibna allah ka baryaysaa ilaahu iga nabadgeli bay leedahay sahra. kadibna markii dambe uu
naflacaari noqday fircoonka kan ayuu wuxuu leeyahay war idhaaf jinniye iyo balaayo wax kan binaadam maba ihidbe markaas sidaas uga soo farabaxsanaysaa markaasi ay u ceeb qarisana wuxuu doonayaa in uu addoon isaga u joogta ayuu haajira ayuu farta ka saaraya uu leeyahay kuu shaqayso meesha waxaa ka ratimaya idana arrin weynaatay fircoonkii nebi ibraahim waxa uu helayaa markaa qof loogu talagalay inay u qaadimto ama booyaso u noqoto oo saara kaalmaysa kadibna meesha waxaa ka dhalanaysa markaa haajira oo reerkii ka mid noqonaysa kadibna saara maadaama ay tahay hooyo gabowday waxay doonaysaa in ay ninkeedii ibraahim calayhi salaatu wasalaam ay tiraahdo haddee gabadhani annagaa nala soo siiyey kadibna guurso si ay wax kuugu dhasho kadib halkaasay haajira wixii ka dambeeya ay dhalaysaa nebi ismaaciil markay dhashana hadda sheeko dheer baa meesha ka ratimaysa oo aan u soconno dabadeedna intaan taaba aan usii gudagudbin sheekooyin badan bay buwaagta bibaleka iyo masiixiyadu ay qoraan iyo israa'iiliyaadka aynan hadda annagu danka lahayn maseerbi iyo waxaasay ka hadlayaan muhiimadu maseeri meesha ma naqaano wixii dhacay laakiinse waxaynu ognahay in ay saara iyana ay jeclaysatay inay idan uba dhasho maadaama hooyo ay tahay intaas sanana ninkeeda isqabeen oy duqoobeen iskuna duqoobeen kadib aayaadkaasi weeyaan meesha aynu ka arkayno allah subxaana watacaala uu nebi ibraahim iyo xaaskiisa saara ayagoo duqunimo isu arka oo waqtigii dhalidda ka gaboobay isu haysta ayaa saara waxaa loo sheegayaa in ay iyana loogu bishaareynayo wiil ghulaam kadibna doodaa dheer doodna ma ahan hadallada isweydaarsiga ee qofka uu leeyahay war anigoo duqoobay oo daadaan jira miyaan dhalaya kadibna allah subxaana watacaala halkaasi saare waxay ku dhalaysaa wiilkeedii isxaaq markay dhashana waxaaba loo sii bishaareynaya inuu yacquub ka dambayn doono yacquubna waxaan ognahay inuu ka dambayn doonaa 12 wiil oo nebi yuusuf ka mid yahay marka meeshaasi dhan deegaankaasi waxaa ka ratibmaysa oo ka dhalanaysa iyana population dhan oo muslimiin ah oo loo yaqaano dhulka muqadaska ah ama dhulka nebiyada ah ayaa eegaas dhan noqonaysa falastiin ballarkeeda dhulkaasi dhan waa meesha nebi yacquub ku ilmi dhali doono waxaa ka ag dhalanaya nebiyo tiro badan oo xitaa ilaa iyo nebi muuse uu ku jiro ciise uu ku jiro nebiyadii kale ee daawuud iyo sulaymaan iyo kulli isxaaq zakariye yaxya intuba waxaasoo nebiye ah waxay ka imaanayaan marka dhabarka nebi ibraahim kadibna nebi ibraahim markii dambe wuxuu dhahayaa dhulkaasi waa kasoo tegayaa wuxuu u socdaa amar la siiyey inuu maka tago xijaas buu aadayaa markaa qaybtan waxaan doonaynaa iyadana faa'iidada ka ratibmaysa meeshaas inaanu isla fahmno nebi ibraahim wiilkiisii iyo xaaskiisii haajira ismaaciil ayay isa soo raacayaan maka ayuu dhigayaa sheekada aad taqaanaan ayaa meesha ka dhacaysa ee zamzamka uu ku imaanayo ilaa iyo ducadii ay samaysay haajira maxaa la dhihi jiray ilaa biyahan hadda maanta socda ilaa iyo maalintaasi kadib safa iyo marwa ayaa iyana ka dhalanaysa kadib nebi ibraahim waxyaalo badan maro badan buu imaanayaa maka kadib wuxuu ku noqonayaa dhulkii kale ee wiilashiisa isxaaq ay joogeen iyana meeshaasi markuu soo noqdo haddana mar isagoo ka maqan uu duceeyo iyo mar isagoo joogaba haddana imtixaan kale uu marayo waa marka wiilkaagii gowrac la dhahayo ee meesha ay ka ratimaysiina dabxiga waa haddana markaan wada dhisayaan kacbada markaa sheekooyinkaas oo dhan waxa weeyaan waxyaalo cilaaqo ku leh maanta socdaalkaasi nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam uu ka soo haajiray dhulkii baabilyon ilaa uu ku imaanayo maka waxa weeyaan ilaa iyo maanta ayayna taabanaysaa waxay noo taabanaysaa diin ahaan oo waa qayb ka mid a acmaasheenna dacawi acmaasheenna cibaadada ah qaybna waxa weeyaanba maxaa la dhihi jiray siyaas ahaan bay hadda siyaabo kale noo taabanaysaa oo siyaasooyin isdiidan ee beryaha kan caalamka la doonaya in laga dhaqangeliyo ee loo yaqaano ibrahimic accord wax loo yaqaano ee dana gaara laga leeyahay ayaan doonaynaa qofka muslimka ah ama qofka ay dhegaysanaya in aanu isku mowqif ka noqono ama liista aan kula wadaago anigu waxaan ka aaminsanahay marka adiguna waxaad xaq u leedahay inaad baaritaan samaysid oo aad go-aan adigu aad ku qanacdid gaartid marka casharka laga qaadanayo
safarkan dheer iyo qaybtan aan ugu talagalay qaybta labaad ah waxaan rabaa inaan kugu baraarujiyo walaale mar kasta duqaadda ama madaxda hadday noqdaan boqorro hadday noqdaan madaxweyneyaal mar kasta inay kibir badan yihiin xadgudub badan yihiin kasoo qaad xitaa aadan kaga nabadgelayn xaaskaaga nebi ibraahim xaaskiisu ugu nabadgeli waayey fircoonka kibirka badan ee doonay inuu maxaa la dhihi jiray farax xumeeyo taasi waa cashar kuma eka ninkaasi waxa weeyaan way sameeyaan madaxda badankood ama qof kastoo awood isbidaya waxaan kaloo ka fahmaynaa arrintan markii nebi ibraahim allah subxaana watacaala ugu bishaareeyey in uu isxaaq dhalayo kadibna gadaashiisa yacquub imaanayo ay dhalayso maxaan ku rahdaa hooyada saara da-da ay ku dhashay allah subxaana watacaala wax kasta ayuu awoodi karaa da' kasta ee allah subxaana watacaala uu go-aansado kun fa yakuun taasina waa laga fahmaya kadib waxaan kaloo rabnaa in sheekada aadka maxaan ku rahaa muhimkii ugu ah waxay tahay nebi yacquub wuxuu dhalayaa 12 caruur ah oo nebi yuusuf hadda uu ka mid yahay walaalihiisii 11 ahaa waxaa leenkaas ka imaanaya nebi muuse iyo haaruun baa iyana maxaan ku rahdaa leenkaas ka imaanaya waxaa kaloo ku jira nebi daa'uud nebi sulaymaan ilyaas yuunus iyo zakariya iyo yaxye iyo dhammaan waxaasoo idile rususha ah waxay ka soo wada bixi doonaan ay ku noolaan doonaan aag yar dhul yaroo marka geographically la fiiriyo masar ay xagga ugu jirto ilaa iyo maxaan ku rahdaa suuriya ilaa iyo waa arlo sham falastiin hadda dhulka yuhuudda xoogga ku haysato ee baytulmuqadas ama ardullahi almuqadas dhulkaa barakaysan ee dhulka barakaysan loo yaqaano ee rususha badan ay ka soo baxday ee dhulka nebiyada loo yaqaano dhulkaas weeyaan marka sheekada aan rabo inaan kugu daro ee hadda aan beryahan ka socota caalamka ee wadamo badan muslimiin ahna ay qayb ka yihiin waxa weeyaan nebi ibraahim waxa uu ku dhintay magaalada loo yaqaano khaliil ee maxaa la dhahaa aan ku tus sawirkeeda nebi ibraahim wuxuu ku dhintay oo wiilashiisa isxaaq iyo yacquubna ay ku dhinteen magaalada loo yaqaano khaliil ee ku taal dhulka falastiin magaaladaasi markaad fiirisid waxaad arkaysaa iyo waxaa maanta ka socda iyo hagardaamada lala maagan yahay waa waxaadan malaysan karin sawirkan wuxuu ku tusayaa waa qabrigii nebi ibraahim waxay ku tala alkhaliil waa the old city of hebron in the southern west bank dhulka daanta galbeed loo yaqaano ee falastiin ayay ku taallaa magaalada tan nebi ibraahim baa ku aasan wiilkiisaa ku aasan isxaaq sheekada cajiibka ah waxay tahay markaad u dhugatid meesha nebi ibraahim ku aasan yahay magaalada tan waxaa hadda soo degay oo koonaradeeda dhan degan maxaan ku rahdaa kuwa dib u degayaasha ahee yuhuudda ahee laga caalamka geesihiisa ka yimid meel kastoo ay isaga soo habarwacan karaan mar waxaa dhacday inuu nin meesha uu qori intuu soo cabaystay dadka masaakiinta ah uu ku laayay waa dhacday dagaallo badan ay qaadeen waxay yidhaahdeen meeshaasi waa in naloo kala baraa maadaama ibraahim uu annagaba aabbaheena yahay anigu maanan tegin laakiin taariikhda waxaa laga fahmayaa masjidka hadda meesha uu ku aasan yahay nebi ibraahim masjid baa dhinaca ugu yaala oo qeyb ka yahay muslimiinta ay ku tukato irid baa loo kala baray dhinaca kalena waa maxaan ku rahaa yuhuudda iyo ciddii iyada wehelisa kiristaankii waxaas ayana isticmaala waa arrin contentious ah markaa waa arrin aad iyo aad maxaan ku rahaa politically charged ah sheegashada nebi ibraahim allah subxaana watacaala wuxuu inoo sheegay maa kaana ibraahiima yahuudiyan walaa nasraaniyan walakin kaana xaniifan musliman wamaa kaana min almushrikiin taasaan aaminsanahay anigu laakiin sheegasho badan baa jirta ibraahim waa annaga ibraahim waa aabbaheen
ibraahim annaguna ahaa mararka keliya ay dhifka ay naadirka ah ay ogolaanayaan in uu na wada yahay iyadana hadda waxaa la doonayaa si political in looga faa'iidaysto oo dowlado badan oo carab ah oo khaliijul carab ah ay qayb ka yihiin oo aan doonay dadka iyaga inaan anigu qaybta anigu markaa xilka iga saaran yahay inaan sheego waxaan ka aaminsanahay waa arrin la damacsan yahay dadka iyaga in lagu maxaan ku rahdaa hoosta loo geliyo loogana faa'iidaysto nebi ibraahim inagu waynu aaminsannahay waana nebigii aabbaheena oo abu rasuul abu tawxiid waana tan dhibka u maray oo dabka u galay inaguna aynu maalin kasta u galayno waana caddayn doonaa marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam fariintiisa DNA-diisa iyo fariintiisa uu ummadda u gudbinayo dhibka u mudan doono laakiinse arrintan kale ee sheekada ah waxa weeyaan arrin dana gaara laga leeyahay uraadu biha baatil taana weeyaan ta aan doonayo qof kasta in aad maskaxdaada isticmaashid aqoon research samee kadibna go-aan ka gaar dowladda Soomaaliya waxaan uga digayaa in ay barnaamijka noocaas oo kale ay qayb ka noqoto maxaa yeelay lacag iyo adduunye iyo waxyaalo badan baa la socda oo tuuganimo ah annaguna marna ogolaan mayno maxaa yeelay nebi ibraahim waa xaniif cid kasta oo xaniifnimadaasi rabta inay ku dhaqanto tawxiidka ku rabta inay ku dhaqanto ayaynu la shaqaynaynaa qaybna ka noqonaynaa walaalana noqonaynaa marka insha allahu qaybtii koowaad waxaan doonayaa in aan ku soo qatimo socodkii dheeraa ee nebi ibraahim wuxuu yimid maka waa ku ilmo dhalay waxa uu dhalay maxaan ku rahdaa ismaaciilna kadib waa qaangaaray aabihii waa ka tegay wuxuu ku noqday maxaan ku rahdaa dhulkiisii halkaasuu ku dhintay halka uu ku dhintay ee ibraahim uu ku aasan yahay isxaaq ku aasan yahay oo yacquub ku aasan yahay iyo maxaan ku rahdaa nebiyo badan ay ku aasan yihiin maanta saddexdaas ibraahim qabrigiisii baa maxaan ku rahdaa la isku haystaa oo yuhuud ay sheeganaysaa ibrahimic accord iyo ibrahimic balaayana ay meesha laga soo aasaasayo oo anigu aan runtii doonayo dadka iyagu inay ku baraarugaan aysanna ku kadshoomin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh